ma wada jirkeena dhibaato inoo noqde haddii uu yahay jaceylkeena mid runta ku salaysan. maxaan sameeyaa aniga waan daalay sidaan dhibaatooyinkeena xal ugu raadinayay. maxaa dhibaatooyinkeena xal ugu heli la'dahay? waxaan rabaa inaan farxad kula qaybsado noloshana wada jir ku dhammaysano. anigaba waan rabaa laakiinse danta iyo duruufta ayaa inoo diidaysa. waa xanuun aanu dul qaadan karin marka uu qadarta kaa fogeeyo qofka aad dunida ugu jeclayd. ruux aan kaa jeclahay dunidan kuma noolo. farxadaada markaan arko qalbiga ayaan ka farxaa, balse hadday ciidda ila ciishoote, cirkana ila cawday, calafkana igu xumaaday, waa iska xaal adduun. waayo dunidoo idil waa mid duruuf ku dhisan. isku day inaad ifahanto adiga. aniga ma rabo in yaroo dhaawaca inuu qalbigaaga soo gaaro. marba haddaad nolosha igu cidlaysay, ma ciqaab kalaa ii hartee? waxaan rabaa noloshaada inaysan nusqaamin la'aanteeda iska faraxsanaato. rabbi waxaan kaaga baryaa inaysan nolosha ku xumayn. guul walba aad nolosha ka gaartana waa ii farxad aniga. dadku maxay u dhahaan jaceylku waa nolol haddiiba dhibaatadan ku hoos duugan tahay? run ahaantii qalbiyadeenna holac ayaa ka wada shidan. maxaan dhaaxa soo wada jirnay dhiigeenna ugu farxadda badan. adduun waa wada dhalanteed, dhibaatooyinna laga dhaxlo, balse kuma fikirin in ilaysyada qalbiyadeenna hal mar wada dami doonaan. dhibaato adduun iyo weliba dhaawac jacayl waa loo samraa. waa inaan samir ka badinaa.